Ha murgoon marka nolosha meel walba ciriiri ka dareento, sababtoo ah Allah marna ma ilowsana dhibaatadaada, laakiin wuxuu ku diyaarinayaa waxyaabo kale ka farxin doona. Allah subxaanahu wa ta'aala naxariistiisa ayaa meel kale kaaga waasicinaya. Hawalwalin laga yaabaa waxa aad rajaynayso inuu kaa soo daaho, laakiin haddii aad u sabarto waa xaqiiq in riyooyinkaaga rumayn doonto. Walaalkaygiyo walaashaydiyay, si badi sabarka si aad u hesho farxad badan. Haddaba Allah weydii wax walbo aad u baahan tahay, sababtoo ah Allah ayaa awooda leh. Allah ayaa ku siinaya wax walbo aad rajaynayso, wax walbo aad u baahan tahay. Laakiin xasuusnow, haddii aadan helin waxa aad rajaynaysay, ogow waxaas inay khayr kuu ahayn, sababtoo ah Allah ayaa og wax walba ku fiican oo khayr kuu ah. Ha ka murgoon, hana ka walwalin duruufaha kaa soo gaaray waxaad rajaynaysay, maxaa yeelay culays walbo fudeed ayaa ka dambeeyo. Culays walbo ku soo marana wuu tagayaa, wax walba waqti qaas ah ayay leeyihiin. Walaashaydiyay, walaalkaygiyo, xasuusnow dhib walbo ku soo mara, casharo fara badan ayay ku bari doonaan. Casharadaasna waxay kaa dhigi doonaan qof adag, noloshana ka ogaada waxyaabo aad u fara badan. Murugo walba farxad ayaa ka dambeysa. Qof walbo imtixaan nololeed ayuu ku jiraa dunidan. Ha yaraadaan ama ha weynaadaan, mana jiro nolol ciqaab la'aan ah. Dhammaan nolosheena marmarka qaar waxaan dareennaa murugo iyo xanuunadaasoo naga qarsoon, oo aan rabin inaan mar walba dad kale ula wadaagno. Laakiin sidaa ma sii ahaan doonto, waayo murugo walba farxad ayaa ka dambeysa. Habeenkii mugdiga ahna waxaa ka dambeysa maalin iftiin badan. Duruufaha iyo dhibaato walbana waxaa ka dambeeya nolol aad u qurux badan. Mar walba dhoraacday walaashaydiyay, walaalkaygiyo.